markii lay doortay ra'iisul wasaaraha Malaysia waxaan arkay in dadka Malaysia yihiin dad caajis badan oo aan rabin inay shaqaystaan. waxaan ogaaday inta ciladaasi caajiska ay jirto in aan dalku horumari karin. waxaan ogaaday inta ciladaasi caajiska ay jirto in dalku aanu horumar beegsan karin. si aan ciladaas iyo kuwa kaleba aan xal ugu helo waxaan u kuurgal booqasho ku tegay wadamadii xilligaas naga hormarsanaa, gaar ahaan wadamada Yurub qaarkood iyo wadamada bariga fog ee Asia. wadamada Yurub waxaan ku soo arkay waxyaabo looga dayan karo balse aan badnayn. shaqaalaha wadamada Yurub waxay ku fikirayeen xilligaas sidii loogu kordhin lahaa mushaharkooda iyo in laga yareeyo saacadaha ay shaqeeyaan. marnaba reer Yurub xilligaa kama ay fikirayn danta iyo horumarinta meelaha ay ka shaqeeyaan wax soo saarkooda. warshadaha ka jira Ingiriiska oo kale wax soo saarkoodu wuxuu kor u kici jiray marka shaqaalahooda mushaharka loo kordhiyo oo kaliya. sidaa darteed Ingiriisku xilligaa lama tartami karayn wax soo saarka warshadaha Japan, Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed. laakiinse wadamada Aasiya waxa ka jiray arrintaas ka duwan. waxaan ku soo arkay arrimo cajiib oo isoo jiitay. dadka Japan iyo Kuuriyada Koonfureed waxay ku shaqaynayeen xilligaa hami sare, firfircooni iyo dadaal badan iyagoo ku shaqaynaya mushahar yar. wuxuu dareenkoodu ahaa inay ka soo kabtaan dhibaatooyinkii iyo burburkii ka dhashay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunida. arrimahaas iyo dareenkaas ka jiray Japan iyo Kuuriyada Koonfureed kuma aanan soo arag wadamada Yurub. shaqaalaha wadamada Yurub waxay ku fikirayeen sidii kor loogu qaadi lahaa kaliya mushaharkooda. laakiin shaqaalaha Japan iyo Kuuriya ma aanay danaynin xilligaas mushahar badan iyo inay saacado yar shaqeeyaan. waxayse u ordayeen u dadaalayeen inay dalkooda dhisaan oo ay horumariyaan. sidaa darteed waxaan dareemay Japan iyo Kuuriyada Koonfureed inay iyagu ugu dambayn ka miro dhalin doonaan kacdoonkooda horumarka. sidaa darteed waxaan dalkayga u doortay inay ku daydaan oo aan wax ka kororsano wadamada Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. شعوب اليابان وكوريا تعمل بهمة عالية وجد عظيم ومستعدة دوما للقبول بأجور منخفضة، وخاصة في المراحل المبكرة لنهضتهم، لأنهم كانوا يشعرون بالحاجة للتعافي من آثار الحرب والدمار وإعادة إعمار بلادهم، وهو أمر لا نشاهده في أوروبا التي كان تركيز العمال فيها دائما على المطالبة بزيادة الأجور وتقليل ساعات العمل. kadib wadamada Japan iyo Kuuriya ayaan u diray arday badan oo reer Malaysia si ay Japan uga soo bartaan aqoonta cilmiga warshadaha ayna Malaysia aqoontaas uga faa'iideeyaan. laakiinse waxaan arkay inay weli sii jirto ciladii caajiska ee bulshada. aqoon aan lahayn qorshe iyo akhlaaq shaqo waxba nooma kordhiseen. ma aaminaysaan anigoo ra'iisul wasaare ah inaan 78 safar oo isku dhow inaan ku tagay dalka Japan si aan uga soo barto Japan akhlaaqda shaqada, ilaalinta waqtiga iyo jadwalka nololeed ee qorshaysan ee ay ku horumareen reer Japan. arrimahaas markii aan ka soo bartay Japan kadib waxaan imid dalkayga. waxaan dadaal badan ku bixiyay inaan Malaysia ka hirgeliyo nidaamka akhlaaqda shaqada iyo jadwal nololeedka hagaagsan oo qorshaysan. markii aan ku guuleystay inaan bedelo oo hagaajiyo akhlaaqda shaqada iyo jadwal nololeedka bulshada, markaas ayay bilaabatay horumarka Malaysia. waa meesha buddhiga u ah horumarka Malaysia ee maanta aad arkaysaan. kadib bulshadii Malaysia oo ahayd markii hore beeraley ayaan u bedelay bulsho ku tiirsan wax soo saarka warshada iyagu ay leeyihiin. waana midda maanta Malaysia aad ka arkaysaan. من خلال النظر شرقا
لم نرد فقط اجتذاب الاستثمارات من اليابانيين وغيرهم، بل أردنا أيضا أن نتعلم منهم أخلاقيات العمل التي عندهم. فاليابانيون لديهم أخلاقيات عمل عالية جدا، فهم يعملون بكل جد ونشاط، ولا يمانعون في العمل ساعات إضافية من أجل شركتهم، ولهم ولاء كبير لشركتهم، ولا يضربون عن العمل.